أركانتا حجك أو حرمنايو في الإحرام والطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف وحيكو حقيقو بتاع إحرامكو إلا حرمضكو حجك والركن طواف إلا طوافه أو طوافه حول البيت كعبة حريري هذا والسعي بين الصفا والمروة صفا مروة انتو لا يصلى أورطه والوقوف بعرفة الاستاجو فلا يتم الحج إلا بأداء هذه الأركان حجكم أتهم ناخذه إلا أركان تان مو يعني مركان إحرامكم وهو سنة الدخول في النسك إحرامكم هو إن هرت لقلو سنة لقلو عملك لقلو عملك إن لقلو واي نيدي سواي نيد أو عملك أدكم كلي سواي مرتان وحوي وإناد أقاته إناد إلهي دراديس أد وقت أنكدنيسو إيا الزمن إيا أد أنكدنيسو أو أد زمن كاغا أد كنت داليسو إناد تأخرين إناد تبقوا لعين إناد لا سعوتو أحواشا إيا حالتها إيا عملك أد كلا سعوتو واي أركانتو وعن كده كلينا مواقيت ميقاتك ميقاتك هواي ميقات زماني iyo miiqaad makaani ah waay labadaas ay u qaybsamayaan miiqaad zamaani ah waxaa waaye ashhurul xaj waay miiqaad makaani ah waa meelaha laga soo xarmanayo oo dadku ay ka xarmanayaan masalan ka soo qaad yalamlam oo kale oo Soomaalidu ay ka xarmato yalamlam waa miiqaad raabiq waa miiqaad juxfa waa miiqaad abyaar cali waa miiqaad salaasil waa miiqaad marka miiqaad zamaaniga waa waqtiga uu bannaan yahay in xajka la xarmado waa bilaha shawaal iyo dulqacda waaye والتمتع من ذي الحجة حتى فجر يوم النحر وايه والتسعة الأول من ذي الحجة وهرمنا مركا الحج أشهر المعلومات عن وميقاتك زمانك حجك وبليان لأقيها وانا الشيقنا بليه وحي نقولنا يعني مواضيع ده حتى كما ميقات زماني والشيقنا ميقات زماني وحواي وحنا شوال يا ذو القعدة يا ذو الحجة وايه ذو الحجة أو إلى مالنتا فجرك لغا كارو فجرك يوم النحر مالنتا طماناتك انت لغا كارو waxaan guda gelina miiqaad makaani waa meelaha laga soo xarmado ama laga cumraysto oo aan la soo gudbi karin meelahaas maxaa rasuulka xadiday sida Abdullah ibn Abbas uu sheegayo wuxuu leeyahay waqata rasuulullah sallallahu alayhi wasallam li ahli al-Madina reer Madina wuxuu u waqtiyay rasuulka dal Xulayfa meel leeyahay waa meesha hadda abyaar cali lagu magacaabo wa ahlu Sham al-Juhfa هير شامنا جحفة هير نجدنا في المنازل قرن المنازل ما اللي وهي ولأهل اليمن يلملم أو سمالدو أي كمتها وحور فهن لهن أيقع إسكاله إيه ولمن أطاع عليهن ما تدخلوا ماشي صومرة أو من غير أهلهن أهل كوت عنها ومن أراد الحج والعمرة حج عمرة دونها فمن كان دونه فمن أهله ruuxi meelahaas ka sokeeya mawaaqiidka oo xaramka ka xiga maxay noqonaysaa meesha uu ahalkiisa joogo ka xarmanaya hataa ahlu makata reer maka yuhilluuna minha duwayrati ahli reer maka waxay ka xarmanayaan madiina waxay ka xarmanayaan meeshay joogaan gurigooday ka xarmanayaan ma safrayaan ayaga laakiin dadkan safarka ku yimid meelahaas inuu soo maro rabaa marka maxaa laga rabaa marka meesha soo marayo waxaa laga rabaa inuu dhar cusub qaato dharki oo qubaysto oo dhar cusub oo qaato ay laga rabaa waaya waxuu ka fogaanaa waxyaalaha xarmashada xaaraam ku ah oo maxduurka ah waxuu qaadanaa malaabis cadcad oo ragga
ayuu qaadanayaa iyo dhar u munaasaba inay qaataan haweenka ayuu qaadanayaa. waxaa marka bannaan malaabis kasta oo kayru mukhiita oo kaana lawnuhaa ilaa ana alabyad kaana cadaa fadli badan laakiin dadaan cadayn oon isku tol ahayn dhexda laga gelayn waa la qaadan karaa. waa la qaadan karaa. dumarka waxay ka fogaahayaan waa doynoo dharhay qaadan karaan laakiin waxaa laga rabaa inaysan qaadan wejiga aysan daboolin qufaasayn aysan qaadan maxaa yeelay waa tou leh rasuulka alayh الsalaam walaa tantaqibu اlmarأaةu niqaab ma qaadato almuxrimatu walaa talbasu اlqufaasaynina ma marato akhrajahu الbukhaariya wariye xadiiska. waxaa la suneeyaa ruuxi doonaya inuu xarmado inuu qubaysto marka waa yahay qubayskaas sunadou ka mid yahay an yaktasila cinda ixraamih akhrajahu ibnu abi shaybata wariye wayusanu dalika xataa lilxaa'idi wanufasaa xataa midda dhiigga qabta iyo midda dhiig dhalmayhaysa kulli waa qubaysanayaan waa mayranayaan waana xarmanayaan. wayusanu lahu waxaa loo suneeyaa an yatanadafa inuu cidiyaha iska jaro inuu kilkisha iska sifeeyo inuu caanada iska xiiro inuu shaaribka iska xiiro inuu cidiyaha iska xiiro waa ayaa u banaan intuusan gudagelin xarmashada waay intuusan xarmashada gudagelin waa sunaystaa lama ragcaw dukadaa maxaa yeelay rasuulku waxa kaana yarkacu bidilxulayfa meesha la yidhah dulxulayfa ayuu wuxuu ahay ku rukuucay ragcatayn ou ku dukaday. ragcada hore wuxuu ku akriyay suurat اlkaafiruun todobana wuxuu ku akriyay qul huwa allo. marka waxau leeyahay markaas wuxuu ku ducaysanayaa labayka labayk allahuma xajan ayuu yidhaha waaya famaxali xayثu xabastanii labayka waxaan ajiibay allahuma ya allahu xajanaan ajiibay oo xaj baan xirtay fain xabastanii xaabisun haddii wax iga hor yimaadaan oo celihaya famaxali xayثu xabastanii aniga waxaan ku xalaal noqonayaa famaxilii way xayثu xabastanii meeshaad igu xabaastaan ku xalaal noqonaa halkaas ayaan xoola ku gowraca waa iska dhaqanaa. talbiyada waa badinaa inta xarmadashada ku jiro talbiyada waa badinaa. talbiyada waa shicaarulxaj xajka calaamadiisi weeye. marka labayk allahuma labayk wasacdayka wاlkhayru biyadayk labayka wاlraqabaau ilayka wاlcamal taasna ibnu cumara ku daray.